siyaasi ka mid ah siyaasiyiinta xilligiisii noolaa waxa uu dhahay ilaahay siyaasadiisa adduunka waxa uu qaybiyey 198 waxaa la siiyey suldaan cabdulxamiid halna anigaa lay siiyey halka xabadee soo hartayna dunida loo qaybiyey taasi ugu cadaynaysa inuu ahaa shaqsi garaad badan ku fiican go'aamada shakhsiyadeed hogaaminta iyo haldoorka bulshada haddaba waa kuma suldaan cabdulxamiid sidoo kale kaalinta ayuu islaamka ugu jiraa muxuu ku caanbaxay imise sano ayuu xilka hayay dhammaan su-aalahaasi ayayna kula faguri doonaa muuqaalkeena maanta magacaygu waa diino xuseen shacab halkani waa kanalka iftiinka kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta magaciisa oo dhammaystiran waa suldaan cabdulxamiid suldaan maajid waxa uu dhashay 22 September 1842 waxaa soo korisay eedadiisa sababtoo ah hooyadii waxay dhimatay isagoo 12 jir ah waxa uu ahaa mid ku dhex kora habdhaqanka ay ku hayaan reer galbeedka qasrigii dowladda Cusmaaniyiinta inkastoo uu ahaa qof dhowrsan habdhaqanka reer galbeedka sida qamriga suldaanku ma uusan ahayn qof qamri dhadhamiya waxa uu ahaa qof dhowrsan oo alla ka cabsi badan waxa uu ahaa suldaanku mid naxariis badan ciqaabta ugu adag uu ku xukumi jiray dadka dambiyada waaweyn gala waxay ahayd inuu xabsi daa'im ku xukumo ama inuu musaafiriyo oo uu xil u dhiibo si uu qofkaasi noloshiisa u sii wato waxa uu ahaa qof dhimrin badan oo aan ku adkayn dadka waxa uu xil ka qabtay dowladdii Cusmaaniyiinta oo lagu leeyahay deyn gaarayso 300 milyan oo liira markii uu xilka ka degayay waxa lagu lahaa 30 milyan oo liira aabihiisa waxa uu ahaa qof taageer ololaha in dowladda laga dhigo habka reer galbeedka sidoo kale adeerkiisa Cabdulcasiis oo aabihiisa ka dambeeyay waxa uu ahaa asna mid la mid ah waxa uu arkay damaca reer galbeedka oo ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Ruushka wuxuu xilka gacanta ku qabtay 31 Agoosto 1876 isagoo u jira 34 sano wuxuu la kulmay walaalkiisa Muraad oo maasuuni noqday iyo dilkii adeerkiisa Cabdulcasiis wuxuu ogaaday Cabdulxamiid dagaalka reer galbeedka ay ku hayaan inuusan joogsanaynin isagoo u dejiyay qorshooyin badan iyo taatikooyin cajiib ah wuxuu bilaabay inuu sameeyo jaamacad islaami ah taasi oo mideynaysa islaamka oo dhan hadday noqoto madow cadaan carab iyo cajab ujeedadu uu ka lahaa waxay ahayd inuu mideeyo dadka sheegtay islaamka oo dhan si uu taasi ugu dhabeeyo waxa uu dhisay jid tareen kaasoo ka soo baxay Istanbul isla markaana soo galaya Makka iyo dhulkii Xijaaz reer galbeedkii oo arrintaa la anfariiray oo la yaabay ayaa ogaaday in haddii arrintan suurto gasho uu islaamka xoogeysanayo isla markaana aysan horseedi karin arrinkaasi daraadiis waxay kala furfureen qowmiyadihii iyo shucuubtii iyaga oo ku kiciyay nidaam qowmiyadeed oo kala durug u keenay dadkii iyo khilaafadii taasoo suldaanka carqalad ku noqotay waxay sameeyeen reer galbeedka gobol kasta iyo magaalo kasta waxay u sameeyeen maamul si aysan ummadda u midoobin oo mid walba calan gaar ah u sito taas oo kala furfur u keentay khilaafadii waxaa u yimid suldaanka nin madax u ahaa yahuudda waxa uuna ku yidhi suldaan baytulmaqdis annagana ku wareeji waxaan ku siinaynaa lacag aad u badan iyada oo markaasi dowladda deymo lagu lahaa dhibaatay dhaqaale yarina ay jirtay waxa uu dhahay suldaanka haddii aad khilaafadeyda dumisaan falastiin bilaash ku qaataa haddana malaayiintiina lacagtiina haystaa taasna waxay dhabarjab ku noqotay yahuuddii waxayna bilaabeen dagaaladii kirishtanka yahuudda iyo dagaalo cadgoosi ah hadalkii uu suldaanka yidhi markay soo cararaan shacabka yahuudda waxa uu siin jiray meel ay degaan iyo wax waliba laakiin isagoo siin jiray baasboor gaduudan kaasoo ka mamnuuc jiray inay galaan baytulmaqdis iyo dhulkii falastiin isagoo ka cabsanaya waa suldaanka inay yahuudda dhulka iibsadaan oo ay sameeyeen wax isdabamarin ugu dambeyn ay dhulka la wareegaan wuxuu soo saaray go'aan ah inay falastiiniyiinta aysan dhulkooda ka iibin cid walboo dibadda ka timaado suldaanka waxaa laga faafiyey arrimahan wanaagsanayn oo been abuur ah keligii talis iyo kuwo kale oo la mid ah taariikhda laguma hayo qof uu xaqdaro ku dilay ugu dambeyntii suldaanka waxaa ku kacday dhalinyaro islaam ah kuwaasoo ku kadsoomay been abuurkii yahuudda iyaga oo ugu dambeyntii maamulka dowladda gacanta u geliyey reer galbeedka
iyo dad ay ka mid yihiin calooshiisa u shaqaystayaal. waxyaabaha ummadda qalday oo degista suldaanka ka dambeeyey waxay ahayd in saxaafadda iyo warbaahinta suldaanka loo adeegsaday askar kale oo Cusmaani ah, iyadoo uu arkay suldaanka labadii ciidan oo is arkay. inkastoo uu awoodi lahaa, haddana wuxuu diidanaa inay isku dhacaan laba Cusmaaniyiin, sidaasi ayuuna isku dhiibay. halka kuwa qaarna ay baroor bilaabeen markii suldaanka uu xilka ka degayay. waa waqti aan wax la isweydiinin oo xeer iyo fandhaal kala dhaceen. suldaanka waxa uu geeriyooday 28 Rabiicul Aakhir 1336 hijriyada ama 10 February 1918. waxa uu geeriyooday isaga oo jira 76 sano. xasuus qorkiisa suldaanka waxaa ka mid ahaa waxa ugu yaabka badnaa waa tirsi taariikheedkii khilaafada oo laga dhigay tirsi taariikheedka miilaadiga ee reer galbeedka, halka inaguna aynu ku tiirsan jirnay tirsi taariikheedka hijriyada islaamiga ah.